فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا واهدنا به سبل السلام وأخرجنا به من الظلمات إلى النور واجعله حجة لنا لا عليها يا رب العالمين اللهم ارفع لنا به الدرجات وأنقذنا به من الدركات وكفر عنا به السيئات واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا alle naxariistii jannaha ka waraabiya ee waxa uu xaqi maanta ku yimid Cumar Carte Qaalib waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1930 waxana uu waxbarashadiisii hoose dhexe ku qaatay Hargeysa waxa la sheegay in uu ka baxay dugsiga sare oo ku yaala magaalada Cadan ee dalka Yemen markii dambana waxa uu wax ku bartay jaamacadda Bristol ee dalka Ingiriiska markii uu soo laabtay 1950 waxa uu maamulay ka noqday dugsi ku yaala magaalooyinka Laascaanood Hargeysa iyo Berbera Ingiriiska ayuu ku noqday 1956 isaga oo takhasus ku soo sameeyay waxbarashada sare waxa uu soo laabtay sanadkii 1958 oo loo magacaabay maamulka ku-xigeenka dugsiga dhexe ee Sheekh markaa kadib waxa uu maamulay ka noqday dugsi hooy ahaa oo ku yaalay magaalada Gabiley waxa uu ka tirsanaa xisbigii la oran jiray United Somali Congress markii ay Somaliland Ingiriiska madax banaanideedii ka qaadatay 26 Juun 1960 waxa uu ka mid ahaa raggii siyaasadda majaraha u hayay intii aanu dhalan kacaankii waxa uu noqday danjiraha Soomaaliya u fadhiya wadanka Ethiopia markii uu kacaanku la wareegay taladii Soomaaliya waxa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda 1969 waxa uu noqday madaxweynaha golaha amaanka ee qaramada midoobay 72 1974 waxa uu Soomaaliya ku daray jaamacadda Carabta waxa uu xilka wasiirka arrimaha dibadda hayay ilaa 77 tabayaaqadii 77 waxa uu noqday wasiirkii hidaha iyo tacliinta sare isaga oo noqday gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka 7 Juun 1982 ayaa xilka laga qaaday Cumar Carte Qaalib iyo 6 siyaasi oo kale kuwaasi oo kala ahaa Ismaaciil Cali Abakar Cumar Xaaji Masale Ismaan Maxamed Jalle Warsame Cali Faarax Warsame Juquf Maxamed Yuusuf Weyrax iyo Maxamed Aadan Sheekh waxana 7 February ee sanadkaasi maxkamad la soo taagay Cumar Carte Qaalib iyo Ismaaciil Cali Abakar waxana lagu xukumay dil xukunka dilka ahaa ee lagu